iyadoo laygu leeyahay waxaad u hanjabtay ama aad doonaysay balangareynaysay inaad disho gabadhaada Caasha. 2 casho ayaan ku xidhnaa saldhigga. waxay yidhaahdeen 3 casho ayaan ku haynaynaa waanaan ku baaraynaa sababtoo ah gabadhaada kale ee Mawaahib ayaa kaasoo bixisay dacwad ah inaad balangareynayso inaad gabadhaada Caasha disho. kabacdi okay baan idhi 2 habeen baan ku hoyday meesha, wax baaritaanana iguma dhicin, cid ay wareysatayna ma jiro, waxba laygama qorin. markii dambena waa la iska kaasii daayay, waxaa la yidhi waxaa tahay fasax, baaritaankii waan dhammaynay, waxba ma aanad geysan. anigu cimrada ayaan u socday 22kii ayaan doonayay inaan baxo, 23kii baa laysoo daayay. cimrada ayaan qabtay 23kii, wadankan waan ka baxay anigoo xaramka jooga oo cimraysanaya. iyo 28kii maalintii Khamiista ahayd habeennimadkeedii 1 habeennimo wadanka Sacuudiga iyo barkii la soo wacay, waxaa la ii sheegay gabadhaydii inay dhimatay. ilaa iyo haddana wax wara kama hayo. isla markii 30kii waan soo noqday, 30kii waan soo noqday wadanka ku soo noqday Holland. markii aan weydiiyey sababta ay u kaxeeyeen caruurtayda, looga kaxeeyey magaaladii ay deganaayeen, hooyadood looga kaxeeyey, cid wax ii sheegtay ma lahan. waxaa la geeyey meel ay yidhaahdeen waa safe house ama wadankayaga loo yaqaano file house. qolada file house dadka ay kaxaysay file Blackburn geynaa bay yidhaahdeen, ama Khiyaam address, secret address. halkaas ay ku dhimatay Caasha. waxaa la socotay walaasheeda yar Mawaahib oo ay markii hore yidhaahdeen waa gabadhii aan khiftiga kaa dhibtay. anigu 7 caruur ayaa ii joogtay guriga, 5 guriga ayay kaga tageen, weliba ta ugu yara ay tahay sanad. labada waaweyn ee 16 iyo 14 way kaxaysteen, 5tii kalena guriga ay kaga tageen. hadda waxay yidhaahdeen Caasha waa isdishay, lama baarayo. house artistkii ama house doctorkii in jirkeeda la qalo oo la eego in dawo iyo wax la siiyeyna waa ay diideen. Mawaahib waxay ii sheegtay Caasha inaan isdilin, 30 daqiiqo ka hor dhimashadeediina in dawo la siiyey. dawadaasoo ay siisay naag la yidhaahdo Vemco oo meesha ka shaqaysa. 5 casho ay meesha ku jireen, annaa Sacuudiga ku maqnaacay, weliba Vemco dhowr goor isdileen. waxaa kaloo ii sheegtay inaan inantaydu uu isdilin. waxay ku leeyihiin waxa isku dishay capstuk wax la yidhaahdo, ama bahalka dharka la sudho waxa weeyaan gidaarka ku dhegsan. inantaydu dharkeedu wuxuu ahaa 1.70 m, 16 sano ayay jirtay. capstuk markaan meeshii tagay gurigii ay isku dishay, waxaa taalay meesha capstuk hoostiisa sariir. suunkii lama qaadin, meesha ayuu yaalaa, dharkeedii lama qaadin. markii dambena waxay yidhaahdeen ordo asta, lama baarayo, waa isdishay. inantii kale kaxeeyeen Mawaahibna hadda gurigay joogtaa, wax contact nala soo sameeyey ma lahan. dhibaatadaas ayaa igu dhacday. waxaan u baahanahay jaaliyada Soomaaliyeed iyo looyarada Soomaaliyeed iyo kuwa muslimka ah in la garab istaago, inaan helo xuquuqdii iyo xaqii aabonimo iyo xuquuqii ay lahayd inanteeda dhimatay iyo inanta kale ee hadda guriga ii joogto ay kaxaysteen. waxaan la yaabanahay sababta ay u kaxeeyeen iyo sababta waxa weeyaan ay hadda Mawaahib guriga u joogto ay igu soo celiyeen. dhimashada inantaydii aad iyo aad baan uga xumahay, inkastoo Ilaahay ilaha kaxaystay. Ilaahay baa iga jeclaaday, laakiin waxaan rabaa inaan cadaalad u helo, waayo waxa aan ku kalsoonahay hadalka inantayda Mawaahib ee ah walaashay ismayna dilin. kuma kalsooni hadalka ay sheegayaan. sifaha xitaa la iga qaatay ama ilmahayga loo kaxeeyey waa sifo sharci darro ah. anigoo ogolaanshiyo kama siinin, hooyadood ogolaanshiyo ma ayna siinin, maxkamad ogolaanshiyo mayna siinin, boolisku ma uu kaxaynin. iyagu waxaa kaxeeyey qolada socialka. ilaa hadda socialka xitaa wax tacsiya kama hayno, information booliska kama hayno. marka dhibkaas ay soo gaaray. waxaan u baahanahay inaan Caasha cadaalad u helo, aniguna aan cadaalad helo, sababtoo ah 16 sano ayay agtayda ammaan ku ahaayeen, iyaguna 5 casho ayay ku dileen. marka waxaan u baahanahay Soomaali meel kastay joogto in ilmahayga cadaaladiisa la igala shaqeeyo. lawyer cidii caawin karta, lambarkayga waxa weeyaan 3003106844567. waxaan u baahanahay in cadaalad aan u helo ilmahayga. waxaan u baahanahay
in Soomaaliya ay garab istaagto waxaan u baahanahay at least inaan helo cadeymo ugu filan oo cadeynaya in ilmahaygu isdishay waxaan u baahanahay inaan helo sababta sidan la igula dhaqmay aniga la xiray anigu wax dambiye geysanin haddana la seekay soo daayay haddana carruurteedii loo kaxaystay haddana ilmahaygii oo dhintay oo la leeyahay way isdilay ilmihii la iga kaxeeyay haddana uu imika guriga ila joogo ilaa iyo hadda waxa ka soo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi